kulanti wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada warka TV-ga Hilaac qodobada daawan doontaan waxa kamid ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka qayb galay munaasabada taariikhiga ah ee cunaqabateynta hubka laga qaaday Soomaaliya gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Cabdullaahi Cumar Abshiro ayaa gaaray magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose Masar ayaa sheegtay in Soomaaliya ay ka taageerayso dhanka hubka maadaama laga qaaday cunaqabateynta hubka ee saarnaa Soomaaliya ayaa ku biirtay guddiga fulinta cimilada maaliyadda adduunka gudoomiye Sheekh Aadan Madoobe ayaa shir gudoomiye kulanka saddexaad ee labada aqal Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa ka qayb galay munaasabada guusha taariikhiga ee qaadista cunaqabateynta hubka Soomaaliya UK ayaa ku dhawaaqday taageero bini'aadanimo oo dheeri ah oo looga jawaabayo fatahaadaha Soomaaliya faafaahin dheeri ayaa ka soo baxaysa dil loo geystay wiil abtigi oo ka dhacday dalka Koonfur Afrika guud ahaan warka TV-ga Hilaac waa naga intaa